بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الشرف تلاميذ كساجوتي وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالين كسته ولا لي دعوين عسبة مالين كسته صباحا وعنك صغير آخر إلى يكرنيه أدير كيس أساسي لي وهو يديس خبو وشنجر يعني وداري وحيالا مالها وتكين كصوبتنا وحلو أتكيس كرامة ناقاني كده نينا ناكتس دلي نينا إنه أدير يهدلي كم جري كرنا ولا حال كفسد عيال على كفسد ورد كوطن كان وحيالا أو وطن كان ودقل أيابه وحيالا حن ما نكس كسب حي ديك معنا درد خداتنا عيب معنا درد تسكلو دلايو نفتيو إيزي سكنا قطعي وحاسة دبات كنا ورياني ودالين ولا لي على ورطة دعوة ورأنا وطن به sheekooyinka murugada leh ee maanka bini'aadanka gilgilaya muddooyinkii ugu dambeeyay waa kuwo ku soo badanayay magaalada xudunta u ah dalkeena ee Muqdisho dhacdooyinkaasi waxa qayb ka ah midda hadda warbixinteena ay daaran tahay ee ah shanjir ka sababsaday gacanta adeerka hooyadii ay u dhaxday aniga haanta dheer soo maraw saarnaay motobajaaj ayaa xaaliyay cunugaadii go'ninta sida ay soo waayay tani waa hooyo Naciima Abshir oo saygeedii uu nolosha dhaafiyay wiilkeedii yaraa waxa ay ka sheekaynaysaa sida ay u dhacday arintan argagax leh taadana waxay ugu dhacday shalay aniga maqan oo isbitaal aaday bas cunug inaa holaashay u dhiibtaa rabay waa u dhiibay balse sida ay ugu dhagay wuxuu ilaa cunug ana haaya ana ku si fiiriyaa u dhahay balse cunug waa ugu tagaa sidoo ooyaa waan baxay isbitaalka markaa tagay oo soo noqday aniga haanta dheer soo maraw saarnaay motobajaaj ayaa xaaliyay cunugaadii go'ninta sida ay soo waayay cunugtaada oo dhintay dhahay cunugkee ma dhintaa dhahay cunugkee soo ku dhimatay raha dhahay marka sida aan dhahay markay xoogahay cunugkeygii xaasiisay wax ma siino dhahay cunugaadii naqas ku soo bood cunugkee xana naqas kuma boodayna wiliisa naqas kuma dhicin xaasi xaaqala qoqod ma yaala kul xal guriga imaado dhahay guriga imaaday ambaar markaa jooga cunuga fiidiyay qofta u horeys korkiis fiirsan aniga ahay korkiisa fiidiyay meelaha ana xaq ku taalay wajida hortarkooda waxaan ka arkay qaraaf markaa ka arkaan caloosh ka qaabiyay caloosha waxa lagu dhiftay bareyskan xoobahay oo doo bareyska u taqaanid ayaa lagu qaraacay oo calooshiisi macal meesh u dhaxays meelaha dirmiya ku taalo caloosha ay hurtay hooya ahay marka cunugkeygii gacan kar darnaa dishay marka inaa cadaalad inaa loo qabtaan jeclahay wax walbo sharciya oo ku tiirsan yahay in wax walba loo sameeyaan jeclahay cunugkeygii gacan kar darnaa dishay marka gacan dish inaa dul doogshaa waa aragteen walaalayaal waxaa loo baahan yahay dawladda Soomaaliyeed inuu niman cadaalad marsiiso sharciga marsiiso ninkaas maxaa yeelay cunug saqiir oo waxba galabsan maalin kasta inuu la dilo oo ninkiina faraha ka baxo wax loo dul qaadan kara ma ah maxaa yeelay horta sabri iimaan Ilaahay ka siiyo maskiinta cunuga dhashay oo saaki isbitaal aaday oo marka aadana u soo caafimaad ka tagtay ida cunugeed wada rabto saa ku dhageeyay waxay dhahday saa ugu dhagay kulli waana dhageysateen waxa dhahay ana ilaalinahay oo ugu tagtay way adeerkiis way isdhaxday daqiiqad kama maqnaan cunugii waa dhintay maxaa ku dhintay dhahay waa dhintay ala kula hal imaaw cunugii maxaa ku dhacay naqaska ma qabana marka walaalayaal waxa loo baahan yahay in cadaalad la marsiyo ninkaas inoo la qabto dawladda Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay waxa liiri wanka qalsi weesh oo qos qaadato marka waxa loo baahan yahay simbir inuu qofka bini'aadanka ah soo uu qos qaato si wax kale uu ku sameeynin waa inuu cadaalad la marsiyaa waa inuu sharci la marsiyaa waa inuu la toogtaa dad badan oo xabsiyada ku jiro oo dhow oo sida odayaal afar jeer la tagaan oo kale si taayo ninkan birid waa soo daya odayaal iyo laba qabiil ka hadlayaan waxyaalaha dhibaatada nagu hayso waxaas waa sharciga ka weyn waa qofkaas waa inuu sharci la marsiyaa soo qofka gacantiisa u fududaan oo adkaato oo maxaa yeelay qofku uu ku dhiirinaa maanta haddii la sii daayo ninka kale uu ku dhiirinaa laakiin ninka haddii cadaalad maro ama tiirka la geeyo ama sharci 5 sano ama ilaa kuma samdiiday cimrigiisa laqo waxa loo baahan yahay marka qofkii kale inta wax sameeyay wuxuu soo xasuusana inuu sharci bari sugaa cadaalad laakiin bari haddii la soo daaya qofkan uu ku dhiirinaa soo ugu dhiirina waa inuu gacmaha la qabtaa waa inuu gacmaha laga goraa dadka oo
gacan ku dhiiglayaasha waa inuu gacmaha laga guraa maxaa yeelay looma dulqaadan karo intaan in ka badan waddankeena uma dulqaadan karo deganaansho nabadgeliyo reereenaan rabnaa waxaa loo baahan yahay marka inuu cadaalad helno sida dadka u sinaadaan oo ilaahay kuma soo qofkii wax sameeyo wuxuu ku sameeyo inuu cadaalad ku helo maxaa yeelay qofka qasa adoo dhow oo waxyaalaha oo xumaatada oo fara badato waxaa laga yaabaa waddankeena inuu ilaahay kuma soo carada ilaahay noogu rido haddana carada ilaahay noogu dhacdo maalin kasta dil iyo dhiig iyo macna dara ku daadanayo waxaa loo baahan yahay inuu toobakeenka la badiyo oo alla ka cabsi la badiyo nimankana waxaa loo baahan yahay inuu dulqaataan ninka waxaa loo baahan yahay ninka ragga ah markoobu oo ogoleen inuu qof kale koriyo ama caruur kaleento naag qabto hadduu guursanayo hadduu caruurtaas u dulqaaday kan waa mid caruur lahayn raadso walaalo naagaha dumarkana waxaa uu ka codsanaa nimankaa la iska fiiriyo niman cunaa jiro oo birito dhib iyo dheef inuu isla sabartaana loo baahan yahay ninka ugu jecel dheefka leh looma baahna bal ka digtoonaada awlaadiina meela madaxa la gelaysiin ka fiirsada si ay dhow meel cilla ugu tagan ama caruurtiina meel kale inta ugu tago iskaraab noo saar noo la garay asxaab sharta leh usii gudbiya asxaabta kale inta ininkan waxyaalaha nayuu noo daawada walaalayaal waxaa loo baahan yahay ilaahay subxaana watacaala u wada noqono aan ugu daceyno maskiintaas inuu bedelka khayr qabo ilaahay siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu